بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn dadweynaha iyo maamulka masaajidka waa mahad celinaya bacd allah subxaanahu wa tacaala intaa kadib xilli abaareed baynu ku jirnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala roob khayr qaba oo caama dadka ha siiyo waxa aan rabaa caawa waxaad taqaaneen inaan idin sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa wadakir faina dikra tanfacu lmu'miniin waani ama xasuusi baa la yidhi dadka mu'miniinta ah xasuusintiiyo waanadaasi dadka mu'minkaa bay wax tartaa diintu ma aha macluumaad tiro badan oo la kororsado ee waxa weeyaan wixii laysu sheegay oo lagu dhaqmo waxa weeyaan qofka muslimka oo hal uu halmaamay dib loo xasuusiyo si ay uga mid noqoto noloshiisa caadiga ah in kelmaddan caawa rabo inaan idhaahdaa waxay ku saabsiisan tahay aafa min aafaati lisaan dhib ka mida dhibka carabka oo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam si guud wuxuu u tilmaamayaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wa yadi muslimkaba waxaa la yidhaahdaa qofka dadku carabkiisa iyo gacantiisa ka nabad galaan waxaa kaloo nabigu uu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam laba ciddii ii ballan qaada anna jannaan u ballan qaadayaa buu nabigu yihi ciddii ii ballan qaada inuu ilaaliyo carabkiisa iyo farjigiisa labadaa qofkii ilaaliya aniguna waxaan u ballan qaadayaa buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam janno waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam dadku hadallada ay sheegaan marar bay hadal yidhaahdaan aanay u fiirsanin hadalkaasi aanu u fiirsanin baryo galbeed intay isu jiraan in leeg ayuu naarta hoos ugu ridaa qofku markuu hadlayay waa iska kaftamayey wuxuu qiimo badan ma siinaynin laakiin cinda allaahi siduu shayga kale ugu weyn yahay mashriq iyo maqribi intay isu jirto in leeg buu naarta hoos u gala waa kii mucaadi ibnu jabal saxaabiga la yidhahdo yidhi ilaahay rasuulkiisii oo waxaanu iskaga hadlayno miyaa naloo qabanaya mucaadow hooyada kaa goblantay buu nebigu yihi oo dadba miyay wejiga naar ugu dhacan waxay ku hadleen mooyaane waxay ku hadlayaan ayaa ah buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam waxaa naarta dadka ku fogeeya sidaa ogeed waxa aan rabo inaan wax ka tilmaamaa waxa weeyaan mas'ala aada u taqaaniin laakiin haddana laga gaban waayey oo rabno inaynu ku celcelino waa dadka wax ka sheegiisa iyo xamashadiisa imka waxa laga yaabaaba inaynu haysanno akhbaar siyaasiya inay tahay iyo see maxaa jira iyo waxaa jira in la sheegaya in waa dadka magaalada joogo dhan in la xanto marka la xanto ayay noqonaysaa khabarkii siyaasiga aynu isu sheegaynay waxaynu ka warramayno intooda ugu badani waa dembi sidaa awgeed ayuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa bulshada muslimka ah inay noqdo bulsho caafimaad qabta caafimaad qabku wuxuu ka bilaabmaa dee dadku inuu carabkaaga iyo gacantaada ka nabad galo meeshii gacantaada laga nabadgeli waayo colaad baa taalla iyo dirir meeshii carabkaaga laga nabadgeli waayana dee cadho iyo ismaag iyo colaad kalun baa taalla sida awgeed buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam saxaabada wuxuu u tilmaamay war horta xanta ma taqaanin buu yidhi atadruuna ma alghiiba xanta ma taqaanin buu yidhi
dhaqanka saxaabada in badan waxaa ka mid ahaa si ay nebiga cilmi uga kororsadaan wax kastoo xataa ay wax ka ogyihiin inay yidhaahdaan allahu wa rasuuluhu aclam, alliya rasuulkiisaa og. markuu ku yidhi xanta ma taqaanin ba yidhahan ilaah iyo rasuulkiisaa garan. wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dikruka akhaaka bima yakrah, waa walaalkaa oo aada ku sheegto waxuu nacayo. gaar ahaan waxay yidhahdeen kiiba waxa loogu bixiyey waa isagoo kaa maqan marka aada sheegto waxa uu nacayo. waxa uu nacayaa wixii doonaysaba ha noqoto. waxaa dhici karta waxaad dad qofnimadiisa ka sheegaysa inay tahay, waxaa dhici karta waxaad diintiisa ka sheegaysa inay tahay, waxaa dhici karta waxaad adduunkiisa ka sheegaysa inay tahay, waxaa dhici karta waxaad dhismihiisa iyo qaabka jirhkiisa ilaahay u abuuray aad ka sheegaysa inay tahay, waxaa dhici karta waxaad akhlaaqdiisa ka sheegaysa inay tahay, waxaad reerkiisa ka sheegaysa inay tahay. baabku doonaha ku saabsanaada. imaamu nawowi wuxuu leeyahy wax allaaliya wuxuu qofku karaahiyeysto ee isaga si uun xidhiidh ula leh aanu rabin in wax laga sheego, wax ka sheegoodu waa xan buu leeyahy. waxa aad kaga sheegaysaa ama carab ha noqdo ama tilmaam ha noqdo, isha aad jebiso, carabku aad ku muddo, gacanto aad qaabkaad doonaysa u dheh, dhammaantood waa xan buu leeyahy. xataa waxay culammadu yidhaahdaan waxaa xana inta qofka la sheegay inaad tidhahda ilaahay ina cafiyo, waa xan bay yidhaahdeen. yacni ilaahay ina cafiyo umaad dan lihid bay leeyihiin inaad rabto cafwiga rabbiga inaad doonayseen, waa duurxul aad u duurxilaysa bay leeyihiin qofkan wax laga sheegayo. qofkan wax laga sheegayo ayaad u duurxulaysaa bay leeyihin. iyo nas'alu llaha asalaama iyo kullu dalik bay yidhaahdaan kiibaday ka tirsan yihin, xantay ka tirsan yihin. waxaa ka tirsan bay yidhaahdaan xanta inaad siiqatu tacajub u sheegto ama inaad ka murugaysantoo kale, bal mu sidaa iyo sidaa yeelo, yacni siduu yeelay baad duraysaa bay leeyihin. miskiin hebel baa lagu yidhi waa caynkaa markaasaa tihi miskiin. miskiinnimadan aad sheegaysa maaha inaad leedahay waa nin iska miskiin oo ilaah yaqaana, ee waxa weeyaan waa duurxul bay leeyihin aada u duurxulayso. walidaalik wax kasta oo noqon kara bay leeyihiin qofku inuu naco in lagu yidhaahdo oo wax ka sheegahay wuxuu noqonayaa nooc xanta ka mid ah. culammadu markay baabkan ka warramayaan 3 masale ay kala saaraan oo luqada carbeed la yidhahdo alghiiba iyo albuhtaan iyo alifk. qolaa waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisa iyo waxaanaanu ku sheegayna hadduu yahayna, isagoo maqan baad wax ka sheegtay, laakiin waxaad ka sheegaysa wuu yahay, laakiin muu rabo in laga sheego. wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay had maqan ka sheegto oo aanu rabin faqad iqtabta, waad xamatay. haddii aanu ahaynna faqad bahadta buu nebigu yidhi, waad ku been abuuratay. marka haddaanu ahaynba iyadu waa been abuurad, waa dembi ka sii weyn. hadduu yahayna waad xamatay buu nebigu tilmaamaya. xadiid culammadu ay ku tilmaamaan inuu xasan yahay ayaa waxa ay tilmaamaan isagoo nebigu fadhiyaa nin yimi, dabeetana waxay ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii bay ka warramayaan, laa yaakulu xataa yuطcam bay yidhaaheen, walaa yarxal xataa yuraxalu lah. wax ma cuno in la cunsiiyo mooyaane, waxa la siiyo mooyaane wax kale ma cuno. ma guuro, ma rarto in loo rara mooyaane. yacni ninkan dacfi liidashay rabaan inay u qariyaan, ama caajisnimo iyo kaslaamnimo ay rabaan inay u qariyaan. marka waxay leeyihin yani xataa naftiisa ma daryeela, inaad wax siisa mooyaane wax cuni maayo bay idhaahdeen. ama in loo rara mooyaane neefkiisa intuu fadhisiiyo kooraha saari maayo wixii uu u baahnaaye wuxuu rabaa in loo raro. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi qad iqtabtumuuh, waa xamateen. markaasay yidhaahdeen inamaa xadaثnaa bima fiih,
ilaahay rasuulkiisa wuxuu ahaa un baanu sheegnay ninkani laysinimada iyo waxa uu wataa xasbuka idaa dakarta akhaaka bima fiihi nabigu waxaa kugu filan walaalkaa wuxuu yahay inaad ku sheegtaa baa kugu filan oo aanu rabin waayo waxaanu ahayn haddaad sheegto iyadu waa ada dheeraada waa buhtaan والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إلهي وحولاي قوة ضدك المؤمنين تأكل بيه يكون شيء يرق يدمر با بغير ما اكتسبوا وحاني كسبا وحاني يهين كل شيء قوة فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قوة يقدم بوين يبين أبورد وين بيحبارين با ربي كنت المامية إذن صدح ذا الشيء هو نوع من الغيبة بيلي وحو يهو نعي إنad ku sheegto war lagaaga sheegay inaad hubinin inaad ku sheegto iyo mid aad adigu been abuuratay inaad sheegto marka ama waa ghiiba ama waa ifka ama waa buhtaan wuxuba baylay baabka meesha wada hoos galaya baabkan xukumkiisu waa maxay quraanka iyo axaadiista baa waxaa ku soo aroortay inuu xaaraan yahay culamada badhna dee ijmaac baabay soo naqliyaan in muslimku isku waafaqsan yahay culamada muslimiinta inay isku waafaqsan yihiin meeshaasi inaanay marnaba bannaanayn imaamu nawowi baa soo naqlinaya bal jamaahiir ulculamaa waxay naqlinayaan waxay soo guurinayaan inay dunuubta waaweyn ka mid tahay jamaahiir ulculamaa saasay qabaan inay dunuubta waaweyn ka mid tahay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa walaa yaqtab bacdukum bacda an yuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuh waاtaquu llaha in allaha tawaabu raxiim waar badhkiin badhka kale yuu xamanin baa ilaahay leeyahy midkiin miyuu jecel yahay baa rabbi tilmaamaya hilibka walaalkii oo baktiya inuu cuno marka hore hilib bini aadam in la cuno bini aadamku uu ka yaqyaqsoodaa dadka hilibkiisa ma cuno mar labaad inuu walaalkaa noqdo waa ka sii darantay mar saddexaad inuu meyd yahay waa ka sii daran tahay ilaahay wuxuu ku tilmaamay marka walaalkaayo meyda hilibkiisa inaad cunto miyaad jeceshahay waad nacaysaa baa rabbi tilmaamaya idan xantani noocaasay la mid sida walaalkaayo meyda hilibkiisa aanad u cunteen ayaanay u fiicnayn inaad waxamato ilaahay wuxuu leeyahy walaa talmizuu anfusakum war nafiihna ha ceebaynina muslimku waa naf waaxida wey walaalkaa markaad ceebayso waxay la mid tahay adoo naftaada ceebeeyey walaa tanaabazuu bilalqaab war naanaysaha aan quruxda badnayn ha isugu yeedhina bi'sa lismu lfusuqu bacda aliimaan waman lam yatub fa ulaa'ika hum aldaalimuun ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya iyadoo kuwa gaaleed laga warramayo waylun likulli humazatin lumaza cadaab iyo halaag iyo hoog wuxuu u sugnaaday mid kasta oo xambadana ah weeyaan humasku iyo lumasku waa mid kastoo ceeb badana ah waxay ku kala farqiyaan culamada qaarkood labada eray midna inuu yahay bilficli midna billisaan inaad isha ama carabka ama qaabuun aan hadal ahayn aad u xamanayso u xaqiraysid ama maaha inaad carabka ku xamanaysid labadu waa isku mid marka waa qofkii oo aad waxaanu ka raalli ahayn aad ku tilmaamayso ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa wuxuu ku tilmaamayaa layunbadanna fi lxutama baa ilaahay yidhi sow iyagu dadka cirdigooda iyo sharaftooda may duminaynin ilaahay wuxuu gelindo waxaa lagu tuuri doonaa baa la yidhi xutama burburisa naar la yidhaahdo naar burburisa isba dadka sharaftiisuu burburinayay ilaahay wuxuu leeyahay naar iyana wax burburisa ayuu geli doonaa ayuha alaxiba ilahay wuxuu leeyahy walaa tutic kula xallaafin mahiin hamaazin mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayri muctad ha maqlin baa ilaahay nebigu isku tilmaamaya ku kastoo dhaar badano oo liita oo ceeb badana ah hamaaz ah dadka ceebeeya wax ka sheega namiimada iyo isku dirka ka shaqeeya alhamaaz ay almuqtaab linnaas bay ku fasiraan
إلهي سبحانه وتعالى قرآن بدن بكت المامين ممنوعت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حجي وحجي ود وقت دمنا أها سنة في سقالات ميلها أها لو قربوا خطبته سنورك صدح ميلها خطبة وحا كتشرة مسألة ومسلمين تكعل عليني يدو بيدا دان بقول كنوا مسلمة ضد كبدني جوجان أيوه ويدي وربشنا كتشرتم واتما مشنا كتشرتم وحجي سؤال عنك سنبي ويديني سئو التنبيهية يسوع تشستان إسلامك أنا حرمة وحصاص على والربين وتلمام وحيوش يجان بلد كانوا بلد الله الحرام يهي بشو أشهر الحرم من يتهي وركاسي وشيغان نبي عليه الصلاة والسلام وحولي فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ورديجين يحولهن يعرضهن عرضك وحا لا يلاهدا موضع الذنب يلاهدا والمدح عرضك وحا لا يلاهدا وشرفتي قفك بني آدمك وماشى أمانته أما عيبينته هاي كقد عاد قفك بني آدمك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حج كاسي إن صدح قور قاريسة أي خطبة دا تشيدين والله هذا يا صحابة وبقول كنا مسلمون ميل تاغان وعدين أيو أولي وروح الله يا سنة كنت بدي إننا ميشان سقيما لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا لما نقول من سنة كده بديت ودردارن كون نبي كتجي دردارن كاسي وحويان دد كينا النبي قال سقف كمسلم كه ديجيسه مال كيسه هي شرفتي ديسه وحا وحياله تعرب كاو بدن وحا وحياله وحنتا يا وحي لها المال وحا النبي شيغي عليه الصلاه والسلام ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق الربا ده واحد نقالنا شرعي إنه يكون أدقت وشيء إلهي القرآن كيسا كنت المامي عند الله تمادا دقال هودي يرقلود الدب النبي يقول لي الرباين كوغر ربا يسان وحكم ده كوغر كرية الربا ده وحكم ده الاستطالة في عرض المؤمن استطالة أي إطالة اللسان adigoo carabkaaga ku balballaadhiya qofka muslimka sharaftiisa bigayri xaqin ugu balballaadhiya oo marar yaro kooban bay soo reebi doonaan culimadu oo ay yiraahdaan waa mararkay banaantay inaad wixii